howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Atlanta waxaa muddo dheer jaal ahaa dawladda Soomaaliya. Ujeedada howlgalkani waa ka hortagga iyo xakamaynta burcadbadeedda iyo dhaca hubaysan ee xeebaha Soomaaliya. Wafdi heer sare ah oo ka socda howlgalka Atlanta oo hogaaminaya taliyaha howlgalka Admiral Ku-xigeen Ignacio Villanueva Serrano ayaa booqasho rasmi ah ku yimid Soomaaliya 22 ilaa 24 Janaayo ee sanadkan 2024. ujeedada socdaalkani ayaa ahaa sidii loo qiimeyn lahaa horumarka laga gaaray howlgalka isla markaana ay wada hadal amni ula yeelan lahaayeen madaxda Soomaaliya. One of the things I want to do first is just to come here basically to meet personally to the federal government authorities from Somalia and to discuss with them how we can improve and how can we do better our work to provide a better maritime security environment in Somalia. wafdigan ayaa wada hadal heer sare ah la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo la kulmay wakiilo ka kala socday wasaaradaha dekedaha, kalluumaysiga, cadaaladda, qaybta booliska badda iyo madaxtooyada. sidoo kale waxay kulamo la yeesheen wakiilo ka socday qaramada midoobay, howlgallada UCAB, UTM iyo Interpol. We have had a very fruitful and complete conversations, and the outcome of this conversation will lead my orders in the next 2 or 3 months in order to better support Somali authorities. dabayaaqadii 2022 howlgalka Atlanta waxaa loo sameeyay muddo kordhin ilaa December 2024 taasoo la filayay in waajibaadkooda dib loo cusboonaysiiyo. dawladaha xubnaha ka haya cadeeyay ujeedooyinka muhiimka ah ee howlgalka oo ah ilaalinta barnaamijka cunnada adduunka ee WFP iyo maraakiibta kale ee u nugul la dagaalanka burcadbadeedda iyo dhaca hubaysan ee badda, la socodka dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga geeska Afrika iyo galbeedka badweynta Hindiya, wax ka qabashada ka ganacsiga daroogada, la tacaalida ka ganacsiga sharci darrada ah ee dhuxusha iyo kalluumaysiga sharci darrada ah. The relationship between EU and Somalia has been long standing, is a decade-long relationship, and Somalia has benefited a lot of the EU support.